السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كينا قفكني لهاد لاي وانا استيحا حلقا نقد عدونيسي وانا استيحا دي channel حديات كبسبتا حي مركو اوريسن صوب وقوطاي سبسكرايبكا ناصار حديات هورنا لجوكتنا لاكت ناصار سو دوادا ما انتو حايدين هاي قصة كلا او قروح بدن ودحمر سويلي ابيس بس الله وحي دحمر سويلي ابيس aabaha wuxuu ahaa mid mar walba joogteeyo quraanka aqrintiisa balse wiilkiisii ayaa la yaabay oo weydiiyay su'aal aabo maxay ku taraysaa hadii aad quraanka xifdinaynin aqrintiisa balse wiilkiisii ayaa weydiiyay su'aashaas aabihii ayaa ugu jawaabay aabo oo yiri aabo saladan qaad saladii oo ahayd salad dhaxleysatay waa hore dhuxul lagu doono jiray ayuu u dhiibay wuxuu yiri aabo qaad saladan oo nagu doon biyo wiilkii yaraa ayaa saladii qaaday oo baxay wuxuu aaday biyaha inuu ku doono saladii balse ha ahaatee uu noqoweysay wiilkii yaraa saladii biyaha inuu ku soo qaado isla markaana wuxuu yimid saladii oo faaruq ah aabihii ayaa dhahay mar labaad aabaha quusan oo laabo saladan nagu doon biyo markii labaad ayuu baxay wiilkii wuxuu aaday saladii biyo inuu ku doono hase ahaatee uu noqoweysay isla sidii wuxuu soo laabtay saladii oo waxna ku jirin oo biyo ku wadin markii saddexaad wiilkii ayaa yiri aabo hadana ha quusan laabo nagu doon saladan biyo hadana wiilkii wuu laabtay markii saddexaad wuxuu aaday saladii biyo inuu ku doono hase ahaatee uu noqoweysay markii uu soo laabtay wiilkii yaraa aabihii ayaa weydiiyay aaba saladan maxaad hadda ka aragtaa oo isbedel ah wuxuu yiri aaba markaad ii dhiibaysay waxay ahayd mid dhaxleysatay oo wasaq la dhaxleysatay hadda waa mid nadiif ah oo way nadiif ayay noqotay wuxuu ku yiri aaba quraanka aaba aqrintiisana waa mid sida qalbiga dhaxleystay u nadiifinayso quraanka aqrintiisa qalbiga ayuu nadiifiyaa qalbiga ayuu qurxisaa nuur ay maalintaada ka dhigtaa qalbigaaga dhaxleystay wasaqda ayuu ka nadiifisaa maalintaada ayay ku qurxisaa waqtigaaga ayuu ku qurxisaa walaala ku dadaalno quraanka aqrintiisa maalintii yawmal qiyaama ayay ku shafaaca qaadaysaa adduunkan wax ayay kugu taraysaa oo waxay ku siinaysaa raaxo deganaan qalbi nadiif ah iimaankaaga oo sugnaada caafimaad waxyaalo badan qofka xaasidka ku xataa hadii aad tahay ahlul quraan waxba ka qaadi maayo ilaahana wada dhiga anagana ahlul quraan anagana ku dadaalno walaal quraanka aqrintiisa ku dadaal quraanka adduunyo aakhira waa ku badbaadaysa aqrintiisa aan ku dadaalno waxaad ka fahantay walaal sheekadan hoos nagu qor oo nagu reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.